in badan xiriiro kala duwan jacayl waad samaysay, qaarkood oo ku dhibtootay, qalbiga ayaa lagaa dhaawacay. Jacaylka waxaad ka aaminteen adiga uusan kuu shaqaynaynin, ama jacaylka uu yahay dareen ku dhisan muran, masiir iyo danaysi. Marka aad aragto dad u shaqeeyay jacaylka oo isku faraxsan, muddo badan wada socdaan, isfahamkoodu uu cajiib yahay, waad ka masiirtaa. Waxaad isweydiisaa maxaanan u helin jacaylka sida oo kale ah, maxaanan u helin qofkaygii. Ma jiraa qof aniga laygu talagalay, qof aniga i fahmayo, jacayl qurux badan dhex marayo. Waxa muuqaalkani kugu soo gudbinayaa sidaad u soo jiidan karto your soulmate, qofka adiga lagugu talagalay, qofka ku fahmi kara si kastoo aad u qalafsan tahay, jacaylna ku siin karaa. Intaanan kuu sheegin waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la gareyso. La gareyntaada waxay naga caawinaysaa in muuqaalkeena uu gaaro dad badan. Jacaylka aad rabtid inaad hesho naftaada sii, daryeelkaad u baahan tahay naftaada sii. Ka bilow naftaada wax waliba aad rabtid. Adiga marka aad noqotid waxa aad rabto inaad hesho, waxaad soo jiidanaysaa qofka soulmate-kaaga ah, qofka lagugu talagalay. Waxaana ku soo jiidanaysaa noqoshada aad noqotay waxaad u baahan tahay. Waxaa jira laba qaab aan dadkan ku soo jiidanno. Midda koowaad waa hab muuqaalkeena, sida aan u egnahay, muuqaalkeena guud sida uu yahay, iyo dariiskaan xirannahay. Midda labaadna waa hab dhaqankeena. Waxaan ku soo jiidannaa dadka sidaan ula dhaqanno, naxariistan u muujinno dadka. Noqo qofka aad rabtid inaad hesho, waxaad soo jiidanaysaa qofka lagugu talagalay. Dadka doqmo ma ahan, way ku dareemi karaan inaad jilayso nolol been ah oo aadan haysanin, dhaqan been aadan ku dhaqmin. Haddii aad soo jiidato waxaad soo jiidanaysaa qof qaldan. Waa sababta dad badan jacaylka ugu fashilmaan, u dareemin dhadhanka, nabadda iyo daryeelka uu jacaylku wato. Waa sababta dad badan ugu shaqayn waayay jacaylka. Ahaw qofka aad tahay, ku faraxsanow in qofkaasi aad tahay. Ku soo jiido dadka qofka aad tahay, dhaqankaaga saxda ah, noloshaada runta ah. Waxaa jira qof sidaasi kugu aqbalayo, mana u baahnid inaad disho doorka qof kale. Ha degdegin, iska noolow, qofkaaga wuu kuu imaanayaa. Naftaada jacayl sii, daryeelna sii, ula dhaqan sida qofka aad jeceshahay ula dhaqmi lahayd ama ka wanaagsan. Haddii aad gabar tahay, la saaxiib qofka aad ka hesho si aad uga dhex baarto inuu yahay qofka soulmate-kaaga ah. Haddii aad wiil tahay, la saaxiib gabadha intaadan jacayl kula degdegin. Soulmate-ku waxaa la dhahaa waa more than friend, qof ku ah, qof agtiisaadan ku dareemaynin marti, qof aadan isku qurxinaynin, qof aadan hadallada iskugu aadinaynin si uu kaaga helo, ama si aad ugu muuqatid qof la jeclaan karo. Kuma dhahayo qof kasta saaxiib la noqo, laakiin waa qofka keliya aad ka hesho la saaxiib. Haddii aad aragto in saaxiibtinimada aysan shaqaynaynin, qofkaasi ma ahan soulmate-kaaga. Way dhici kartaa qof aad hadda isbarateen in wax kasta uu noqdo saaxiib iyo jacaylna aad ka hesho. Laakiin wax kasta oo degdeg lagu helaa, degdeg ayaa lagu waayaa. Iska jir kuwa degdega kugu soo gelaya, iska xiji, qalbigaaga aysan kaa wasaqaynin. Qofkaaga wuu imaanayaa, ha qaadato muddo badan, sanado, halkee ayaad u degdegaysaa. Jacaylka ugu quruxda badan waa kan saaxiibtinimada ka bilowda, saaxiibtinimada isu dhow, aan waxba la kala qarsanaynin. Saaxiibtinimo qof kasta uu ogyahay wanaagga iyo ceebaha uu leeyahay qofka kale. Maxaa ka qurux badan inaad hal qof aad ka hesho saaxiibtinimo iyo jacayl. Haddii aad ballanbaalis ceyrsato weligaa gaari maysid, laakiin haddii aad ubax beerato waxay imaanaysaa iyadoo kala qurux badan, kala kalar duwan. Waxaan halkan ula jeedaa jirkaaga dhis, adiga isqurxi, waqti isgeli, tayadaada kor u qaad, noloshaada dhiso, kadibna qofka noloshaasi raba wuu kuu imaanayaa. Weliba fadhigaaga ayaad ku soo jiidanaysaa. Qof waliba wuu jecel yahay qofka dhisan, noloshiisu qaabaysan tahay, nolosha hadafka leh. Laakiin haddii aad daba ceyrsato aad daawato muuqaallo ku dhahayo sidaad ku soo jiidan kartaa qofkaasi iyo sidan u samee ama eryadani ku dheh, qofkani waad ceyrsanaysaa. Qof la ceyrsanayo inuu istaago ha ka sugin, inuu sii carara mooye. Adigana waad ku daalaysaa taasi. Waxba waqti qof ha ku bixinin si aad u soo jiidato. Taa beddelkeeda, waqtigaasi naftaada geli. Soulmate-kaaga fadhigaaga ayuu kugu imaanayaa. Qofka adiga lagugu talagalay, sidayaad ku soo jiidanaysaa.